ciidanka xoogga dalka iyo kuwa deegaanka ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa ay howlgallo ka sameeyeen deegaano badan oo u dhaxeeya Jowhar iyo sidoo kale Raagaceele waxaana inta uu socday howlgalkaasi ay la wareegeen dhowr deegaan oo uu ka mid yahay deegaanka Warciise oo u dhaxeeya Jowhar iyo sidoo kale Raagaceele howlgalkan waxa horkacayay taliyaha guutada afraad qaybta 27 ciidanka xoogga dalka Korneysan Cabdulle sidoo kale Korneel Masdile waxa sidoo kale howlgalka qayb ka ahaa gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan inta howlgalkan uu socday ayaa maamulka Shabeellaha Dhexe iyo saraakiisha ciidanka xoogga dalka waxa ay soo bandhigeen nin lagu magacaabo Maxamed Jeelle Jarasow oo la sheegay inuu ahaa madaxiisa kawaadka deegaanka Warciise shakhsigan gacanta lagu soo dhigay ayaa waxa uu tilmaamay in 10 sano wax leeg uu la shaqeynaya al-shabaab isla markaana uu qaabilsanaa qaybta sakawaadka anigoo Maxamed Jeelle Jarasow maamulka al-shabaab waxaan uga shaqeey jiray sikada qaadowgeer iyo tawarucaadka intii 10 sano anigoo nabadoon qabiilna sikana qaadaya waxaan ka aruuri jiray Soono Jowhar Burkama Bareeyo ilaa intuu dhaxaysa dabagaab Raagaceele inta ka sokaysa isbedel waxa ii muuqdo waxtar oo waxgal oo maaragtay oo wanaag ka muuqdo anigana hadda mugaas aan saas dhaxayay ma isqarihayn ma leexleexayn ma dhaqaajihayn ma gagambahayn waxaan ka rajayaa nabadgelyo iyo wanaag iyo wadajir iyo gobolka nadiif gabagabadii warbaahinta waxaa la hadlay gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan isagoo bulshada deegaanada ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka u soo jeediyay in si dhow ay ula shaqeeyaan ciidamada isla markaana wax walow la'aan muujin maalmaha waxaan maartay howlgalka wadnay tuulada Warciise iyo Wardagax muddo 3 maalmooda howlgalkaas oo lagu nadiifiyay haraadiga ka helay nimankii qawaariijta ahaa oo ummadda dhibaatada u geysay wadankan alxamdulillah waxaan noo suurta gashay in dad badan oo kamid ah dadkii maartay la shaqeeyay nimankii nabadiidka ahaa ama u qaadana ku hanaqdana kuwa sakawaadka aruuriyo oo xoolaha dadka ka qaado dadka dhibaateeyo ama hanaqdana kuwa hore u dhibaateeyay dad badan oo deegaankan kamid ahay ciidamadii macaawisleyda oo guryahoodii iyo xoolahoodii in la dhac ka shaqeeyay guryahoodana in la guba ka shaqeeyay iyo kuwa kale oo maartay ka tirsan kuwaas ayaan maartay qaybo badan oo kamid ah dadkaas ayaa la soo qabtay waana la xiray oo maartay waxay u loo gudbiyay degmada Raagaceele ayaa lagu xiray sida ay u kala daran yihiin haddii Ilaahay ila dambiyadooda lagu kala qaadi doonaa waxaana loo gudbi doonaa maartay meesha waajibaadka looga mari doono xadgudubka ay u geysteen dadka deegaankan degan ama dhibaatooyinka ay u geysteen waxaan u sheegaynaa qofka soo joogto meeshan ama deegaanadan ku sugan oo la shaqeeyayso nimanka nabadiidka haday xaatee telefoon kaliya kula shaqeyso ma la dhaafi doono waana lagu raad joogaa waana la soo qabado meel ay xiran shabaab ay soo waraana ku hortaagan hadaan naga cabsayn manin telefoon durkaas oo waana karaama badan hadaad amarkiisa qaadatay kayna diido kayna socay aniga meesha taagan waana ballan intilaab laga qaado qof waliba ganacsigeeda ha furato si xurriyada ha u shaqeysato shabaab meesha ma joogo mana soo socdo mana soo naqahay qof kastaba si xurriyada inay u shaqeysatay sharaf ku noolaataan rabnaa aad iyo aad dadka deegaankan joogo waxaan u sheegaynaa dadkii hadda ka hor wixii ka horeeyay dadka u tiftifay ama dadka u rufiyaanay ama dadka maarta wararka beenta u sheegay dad ee ku dhibaatay jira shabaab maalintan ku helno ciqaab ayay la kulmi doonaan sharcigaana la horgeey doonaa gudoomiye Meyre ayaa waxa uu tilmaamay in howlgallada ay wadaan uu yahay mid lagu xaqiijinayo amniga guud ahaan deegaanada Shabeellaha Dhexe oo uu tilmaamay in qaar kamid ah deegaanadaasi dib ay kala wareegeen al-shabaab isagoo xusay in deegaanada ka maqan gacanta dawladana dhawaan la wareegi doono